الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. الحمد لله دمان وحن إلهي ومهد علينا سبحانه وتعالى تفسير قرآن كريم كاه وما أنت هل كان نوجود ماذي باللوجيسي أود إنه أن لنا هاي عقل علم أن لنا هاي كمان باللابن haddana kuma aanan dhammayn awood iyo caqli iyo cilmi aanu leenahay laakiin ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala iyo karamkiisa iyo juudkiisa ayaa ilaahay nagu waafajiyey waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxyaalihii cawaa'iqda ahaa ama mawaanicda ahaa oo naga reebi lahaa kitaabkani inuu dhex ku istaago in ilaahay uu naga xafiday oo ilaahay uu naga ilaaliyey subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan oo aafaada jira oo cawaa'iq fara badan oo ilaahay hadduusan naga celi lahayn subxaanahu wa tacaala nagu dhici lahaa marka ilaahay naga ilaaliyey subxaanahu wa tacaala inqidaac iyo fatra in darsigeennii uu ku dhaco ilaahaasaan u mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa daalik waxaan ilaahay weydiisanaynaa nicamka faraha badan oo naga maqanna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna siiyo kuwa ilaahay uu noogu deeqana ilaahay uu noo ziyaadiyo subxaanahu wa tacaala waa nicmo weyn runtii oo xaq u leh mar walbaba inaan ilaahay uga mahad celino subxaanahu wa tacaala qur'aankii degayey 23 sano ku soo degayey nabigeena sallallahu alayhi wasallam mubaaraka calayhi ayaa ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan halkan aanu maanta aanu ku dhammaystiranno بفضل الله ونعمته وكرمه وجوده وإحسانه كتاب كان تفسير كاه وحانو صاب الله وني لواتن يتضبدي بشي أكتوبر لوكن يسدح يتبنكي مالين أحد أيان هل كان كب الله وني وانتنا وحوي وحان جوغنا بشن فبراير شن يتبنكي دي 2016 muddada marka tafsiirku uu noo socday waa 2 sano iyo 3 bilood iyo 18 maalmood 15 maalmood hadda aanu joogno iyo 27 3 maalmood oo ka dhimanay waa 2 sano iyo 3 bilood iyo 18 maalmood ayaa ilaahay noogu suurtageliyay subxaanahu wa tacaala in ilaahay noogu dhameystiro kitaabkii quraanka ahaa oo aan ku akhrisanaynay afkeena Soomaaliga ee ilaahay uu noogu deeqay subxaanahu wa tacaala quraankii marka tafsiirkiisii maadaama uu noo dhamaaday waxaa isweydiin leh oo qof walba uu xaq u leeyahay inuu nafsadiisa weydiiyo maxaan ka faa'iideysanay quraankii casiiska ahaa muxuu naga bedelay nolosheenii iyo akhlaaqdeennii iyo amraashii iyo cudurradii faraha badnayd oo macnawiyaadka ahayd oo qabnay muxuu naga bedelay quraanka kariimka ah maxaan se ka faa'iidinay quraanka kariimka ah qofku ma aha kaliya inuu yiraaho tafsiirkii waan bilowday waana dhamaystay laakiin waxa isweydiin leh maxaan ka faa'iidinay quraankii kariimka ahaa oo intaas ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo ihsaankiisa nagu socday waa afdalu waa'id lil insaan وأفضل مذكر للإنسان وإنسان كوح وعدية ووحو الشيغة وحي أقسر ريه أقوينا وإلهي هذا الكيسي سبحانه وتعالى إلهي وحو تلمامي سبحانه وتعالى قرآن كان بورها أصدى دير ودقح ذا كسميسان هدي لقسو الدجين لها إنه قرآن كوحكب الدليل لها بوره لكن محو أنك وحنوك الدليل إيهايو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إلهي وحليه سبحانه وتعالى قرآن كان بورها دان كسو دجين لهين وحذرك لهيد بوره أيقوى عبسي إلهي سبحانه وتعالى أخشوعي ودقحدي أي اسبدلين أياد بني آدم وأرك لهيدين دقحدي إساقوى قرآن اسبدل كسميي waxaa marka taasi halkaan nooga cad aayadda ilaahay uu noogu sheegay subxaanahu wa tacaala qofkii isku bedeli waayey quraanka kariimka ah uu dhamaystay inuu buurta
iyo dhagxaanta qalbigiisu ay ka sii adayg badan yihiin walciyaadu billah ilaahay naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala maadaama la yidhi buuraha qur-aanka haddii lagula khidaabi lahaa oo buuraha mukallaf looga dhigi lahaa ee lagu kallifi lahaa qur-aankan inuu tadbiiqiyo oo uu ku camal falo buurtii isbeddelay samayn lahayd innagiina inteenna badan walciyaadu billahi ilaa man raximahullah qof ilaahay u naxariistay mooye isbeddel aanaan samaynaynin qofkii isbeddel uu ku samayn waayo qur-aanku waa qof qalbigiisa uu ka adkaaday dhagaxda uu ka adayg badan yahay weeye walciyaadu billah walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka qur'aanka markii loo qaybiyo oo qur'aanka dhinaciisa la fiiriyo inay u qaybsamayaan 3 qaybood bixasabi ta'athurihim bilqur'aani alkariim wa cadami ta'athurihim bilqur'aani alcaziiz annaasu yanqasimuuna ilaa 3 aqsaam qolo qur'aankii ku ta'athurtay oo qur'aanku akhlaaqdoodii iyo noloshoodii uu wax ka bedelay iyo qolo qur'aankiiba inuu wax u kordhiyo oo iimaan uu u kordhiyo oo akhlaaqdoodii uu sii siyaadiyo iska dhaafee dulmigoodii iyo akhlaaqdoodii xumayd iyo dhaqankoodii xumaa iyo cudurradoodii inay u sii siyaadaan maahane waxbaba uusan ka bedelin qur-aanku ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana markii la soo dejiyo qur'aanka suuradihiisa suurad ka mida kuwa qur'aanka uusan saamaynayn waxay dhihi jireen oo isweydiin jireen qur'aanku yuu wax ka bedelay hadda waan dhagaysanay intaasuu nagu dul akhrinayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yay wax u siyaadiyey yuu wax u kordhiyey qur'aanku hadda fa ama aladiina aamanuu fazaadatum iimaanan wa hum yastabshiruun ilaahay wuxuu yidhi dadka mu'miniinta ay qalbigooda uu qoyan yahay waxbuu u kordhiyaa qur'aanku wayna ku bishaaraystaan qur'aanka wa ama aladiina fii quluubihim marad fazaadatum rijsan ilaa rijsihim laakiin dadka qalbiga ka xanuunsanaya cudurkoodii cudur kale ugu siyaadiyaa qur'aanku waxba kama faa'iidaystaan marka 2 qola halkaas aanu ku haynaa qolo dhahaysa qur'aankii yacni waxba kama aanan faa'iidaysan oo qur'aankii waxba aan u faa'iidayn iyo qoro iimaankoodii iyo akhlaaqdoodii uu kobciyey qolo saddexaad oo ilaahay uu noo sheegay oo cudurba uu sii ziyaadiyo akhlaaqdoodii maxaa yeelay qalbi wanaagsan iyo iimaan iyo caqiido wanaagsan qur'aankii aan ku dhageysanayn oon aaminsanayn qur'aankii inuu wax ka bedeli karaba shayga haddaad aaminsan tahay inuusan waxba kugu taraynin waxba uusan kuu faa'iidaynaynin sidaasuu ilaahay kaaga dhigaa subxaanahu wa tacaala sidaasuu ilaahay kaaga dhigaa walaa yaziidu adaalimiina ilaa khasaara ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qur-aankan intaasoo mu'miniin ah oo qalbigoodu uu qoyan yahay wax u kordhinaayo wax u siyaadinaayo daalimiinta khasaaro mooye iyo qooq mooye wax kale kama faa'iidaystaan qur'aanka kariimka ah allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan mahaaniya taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illah ilaahay wuxuu tilmaamay dadka wanaagsan qur'aanka markii lagu dul akhriyo oo macaanidiisa ay fahmaan yacni saamayn uu ku yeeshay jirkooda in laga dareemayo ay jaraynayaan ay qamandhacoonayaan waa qamandhacoonayaanoo waa jaraynayaan cabsi ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo markii ay soo xasuustaan waxa qur'aanku uu sheegayo iyo sida asagu uu yahay uu isbarbar dhigaa qofku dadkii naga horreeyey qur'aanka saamaynta uu ku yeeshay markii la fiiriyo waxa weeye wax garaadkeenna iyo caqligeenna ka weyn maxaa yeelay ibnu xajar alcasqalaani raximahu llahu tacaala kitaabkiisan al-isaaba fii tamyiizi saxaaba wuxuu ku sheegay ninkii la sheekhi la dhihi jiray zuraaratu bnu awfaa qoluu imaam u noqday qur-aanku aqriyey faidaa nuqira fi nnaaquuri fadalika yowmaidin yowmun casiir uu akhriyey fakhara mayita waa dhacay aayadda macnaheeda markuu dhuuxay waa dhintay isbeddel uu ku sameeyo iska dhaafeen naxdin yacni qofku siduu ku sugan yahay iyo waxa ilaahay uu ka doonaayo iyo tilmaamaha qur-aanku uu bixinayo markuu isku fiiriyo dadka qaaraa la dhintay saamayntii qur'aanka tamiimu daari saxaabigii la dhihi jiray wuxuu ka mid ahaa min almuta'athiriina bihada alqur'aani alkariim
dadkii quraanka kariimka aad ugu saamoobay waxna uu ka bedelay quraanka kariimku maalin walbana iimaankiisa uu ziyaadinayay dadkaas uu ku jiray Tamiimu Daari habeen dhan waxa la yiri wuxuu ku soo jeeday saxaabiga Tamiimu Daari am xasiba alladina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladina aamanu wa 'amilu salihati sawa'an mahyaahum wa mamatuhum habeen dhan waagu ugu bariyay aayada sidii ugu celcelinay maxay la aayada macnaheedu waxay leedahay ma waxay u maleeyaan dadka xumaatada sameeynaya in noloshooda iyo geeridooduba ay la mid noqon doonto dadka Ilaahay ka cabsanaya subhanahu wa ta'ala isku mid ma noqonayaan marka dadka quraanka macaanidiisa fahmay macaanidiisuna akhlaaqdooda iyo noloshooda ay wax ka bedeshay sidaas ay noloshoodu ay ahaan jireen walidaalika qof walba waxa haboon inuu su'aal isweydiiyo maxaad ku sugnayd quraankan tafsiirkiisa intaan la bilaabin 2 sano ka hor xaaladaadu maxay ahayd 2 sano ka bacdi markii Ilaahay suurto galiyay tafsiirkii inuu dhamaadayna xaaladaadu xagee ku sugantay bal farqiga ku dhaxeeya muxuu yahay natiijada ama jawaabtu haday ku soo baxdo wallahi waxaan isbedelay ma jiraan 2 sano ka hor quraanka markii la yidul akhrinayay sidii aan ahaa iimaankaygu intuu yaani umqigiisu uu qodnaa iyo hadda intuu iimaankii iyo akhlaaqdii alla ka cabsiga iyo cibaadada sidaan ugu dadaalayo sidii aan ka ahaa ayaan haddana ka taaganahay jawaabta haday ku soo baxdo ogow xaaladaadu waxay ku jirtaa khatar xaaladaadu waxay ku jirtaa khatar laakiin noocan ma haddaad is leedahay wax uun baad iska bedeshay haba yaraatee been caada yaani ku ahaan jirtay beentii Allah Ilaahay quraanku ka fujiyay han caada ka u ahaan jirtay quraanka ka fujiyay dibkii dadka dariska iyo dadka muslimiinta aad ku hayn jirtay quraanka ka bedelay oo ka fujiyay dadkii maaragtay acdaada Ilaahay cadawga Ilaahay oo aad jeclayd quraanka kaaga digay oo ka fujiyay salaatul layl aadan tukan jirin quraanka ka bedelay oo qiyaamul laylkii aad daa'imtay joogtayday salaadii jamaacada oodan joogtayn jirin waad joogtaysay wax uun hadii uu isbedel noloshaada kamid uu ku sameeyay khayr badan lagu rajaynaa Ilaahina ku ziyaadiyo subhanahu wa ta'ala laakiin quraankii hadii haba yaraatay isbedel aadan ku haynin xaaladaada waa loo cabsadaa xaaladaaduna waa xaalad halisa Ilaahina waxaan weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala dhamaanteen inuu naga dhigo kuwii quraanku wax badan uu ka bedelay ilaa uu gaarsiiyo إلهي رديه سبحانه وتعالى هي جنة الفردوس آخرنا وشفاعه إلهي هنقدقه قرآنك إلهي نوغمدقه كو الدشو ذا وحجة كل نغضه وآخرة ودعويه وإلهي هرتيس وكد دعويه إنه يضيعين وألفاد دي سكالية يقريه جرين عمل كيسي معاني دي سينا يضيعين إلهي كواس نغمدره سبحانه وتعالى ففول بمركب وحالدوني إنه تصحيح ذاتي وسمايه تصحيح ذاتي إنه سمايه أصدقه ودب اسكو الصحو وحي كخلدنا قرآن كان انتو اسكو بندقو وقرآن كهرتيس وصادقو إنه أوصافتيسي إيا أخلاق ديسي إيا نولوشيسي وحبضان وكسحو قرآن كريمك مركز الله ديه كرا قفكان الله إله قرآن كريمك آها وحبوك فايديستي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه حديث واحد جري إمام الترمذي وصلن كيسا كورينايي والنبي عليه الصلاة والسلام وكيري إنها ستكون فتنة ومدى إذا واحد كدح دعي الدونة فتنة كدح دعي الدونة قيل وما المخرج منها يا رسول الله وحال لي رسولك إلهي فتنتاس محال لو قبت بادي كرا محال لو قبت كرا فتنتاس وفتن سجرته حق سياسة حق دقالها حق أمنك هي حق اجتماعي بالشدة إن فتن درع والبابا ومدى هريرين دونتا ayaa dhici doonto yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam rasuulka waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam fitanta maxaa looga bixi karaa markaas uu nabigu wuxuu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam kitaabullah wa hadith tirmidhi oo sunankiisa ku warinayo kitaabullah wa min hadith ali ibn abi talib kitaabullah fihi naba'u man qablakum wa khabaru man ba'dakum wa hukmu ma baynakum wa huwa al-faslu laysa bil hazli wa yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi فتنتاس وفتن اجتماعية واقتصادية وسياسية انت وحال لو قبحي كراه ويري كتابك إلهي نبي صلى الله عليه وسلم فتنتا سيدة قود أنك نوهي ستا هدانو نهي الصومالي وصومالي ده هذا مركي اللي فيري وضن كأنه ووضن يعني جسد مال يعني كعاف ما تقبأ سنجرين وهل جر
waddankeenu on kala qaybsami karin haddana xubin u fayow oo u caafimaad qabta aysan waddanka jirin hadday tahay xagga diintii waad maraysaan oo qof islaam sheeganaya oo diin sheeganaya ayaa ummadii dhahaya dhiigoodii ayaan ilaahay ugu dhawaanaa subxaanahu wa tacaala diintu halkaasay maraya akhlaaq markii la yidhaaho xagga siyaasaddana waddankii wuxuu mari in yacni marxalad uu ku jiro lagala tashado cadowgii ilaahay iyo dadkii gaalada lagala tashado xogtii waddanka intay ogaadaan oo yacni qabaa'ilkii ay dhex galaan oo ummaddii ay kala dilaan iyagii masiirkii ummadda Soomaaliya iyaga lagala tashado oo maanta qof markii la soo dooranayo oo madaxweyne la soo dooranayo ama qof mas'uul la soo dooranayo wax badan oo tala ah laga siiyo iyaga oo tala badan ay ku leeyihiin waa cadowgii ilaahay uu yiraahdo laga fogaado subxaanahu wa ta'ala khawanahumullah wa kuwi sayyidina Umar uu yiri khawanahumullah fa amantum wa kadhabahumullah wa saddaqtum من العراق يعني مكتب سيدنا عمر حلقي خلافديسي ومسؤولك أمده وكاها أيا عراق ومركا مامولك سيدنا عمر هوستغيسي أيا ميل حسابه حفيزك حساباتك قرشاتك سوقل ودنك العراق سوقل ودن أيا ننقال اللودي حساباتك مركا سيدنا عمر سي حسابتك كلو وريغو حسابتك سي كلو وريغو مقالة المدينة ننكي قالك الله وكيني markaas waxa la yiri ninkan wuxuu rabaa xisaabtii inuu kugu wareejiyo wixii xisaabuhu hayay masjidkuna ku jiray sayyidina Umar markaas uu yiri ninka maxaa dhacay masjidka hay ugu soo galo hay ugu yimaado markaas la yiri ninku waa gaalo masjidka soo ma gali karo xafiiska xisaabaadku uu hayay waa gaalo masjidka uu soo gali kare banaanka inaad ugu soo baxdo banaanka kula xisaabtanto ayuu sugahay markaas sayyidina Umar wuxuu yiri khawanahumullahu fa amantum إلهي يا خائنين كتل مامي أدين كنا وحد كتل مانتين كولا آمنوا وكذبهم الله وصدقتم إلهي بيان ليال وكتل مامي أدين كنا رنتي نياتكم آمنتين مركا وحوي صوماليا وحيالها دبعتها عام كاي هستا يكوى جود يكوى خاص كا انت بوحا مخرج انه غنكر كتابك إلهي سبحانه وتعالى قيل ما المخرج منها محال لو قبل حكرا فتنتا قال كتاب الله kitaabkaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala in asaga la iska hormariyo oo asaga imaam laga dhigto oo isagu la yiraaho muxuu nafaray arrimaha yaani xagga dhaqaalaha isaga looga tala qaato siyaasadda isaga looga tala qaato cibaadaadka iyo akhlaaqda looga tala qaato taasa looga bixi karaa fitanta caamka ah oo ummadeena saydaraysay laakiin intii wax kitaabka ilaahay aan ahayn laga tala qaadanayo fitantaasan ku jiraynaa ilaahina naga saaro subxaanahu wa ta'ala marka quraanku waxa weeye waa daawadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu tala galay jamiicul amraad al macnawiyya wal hissiyya in looga daawoobo cudurrada macnawiyaadka ah oo la fahmi karin iyo cudurrada la fahmi karo hissiga ah kulli in looga daawoobo kitaabka ilaahay ugu tala galay way subxaanahu wa ta'ala ilaahay hana waafajiyo sidaas marka kitaabkan quraanka ah tafsiirkiisii wuxuu noogu dhamaaday 245 darsiyaanu ka qaadan ama 245 xalqo ayaan halkan isugu soo fariisanay marka waxay ka dhigan tahay hadii maalin walba la akhrin lahaa 245 maalmood uu noogu soo gabagaboobi lahaa maalin walba hadii la akhrin lahaa laakiin hadda wuxuu qaatay 2 sano iyo dhowr bilood ayuu tafsiirkii hadda qaatay laakiin inta badan waxa gelayay fataraad yaani ku saabsan safaradaas fataraadkoodii galay 2 goor xajka yaani anigu aan uga safray iyo markii hadda ugu dhaweedo hindi aan aadayay iyo fasaxyo naga soo galgalayay ayaa waxay saameyn ku yeesheen ilaa waqtigaas dheer inuu maaragtay tafsiirkii uu socdo laakiin mar walbaba waxa uu laga macaashay in galabta ilaahay fadligiisii uu noo dhamaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax badan waxaan soo maray dhowr sano waxa laga yaabaa qofka bini'aadamku uu soo maray isagoon tafsiir dhamaysan uu noolaa jiray laakiin maanta ilaahay fadligiisa subxaanahu wa ta'ala noloshiisa taariikh ahaan waxa u gashay inuu quraankii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadan uu u soo dejiyay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu waafajiyay in dhammaantiisba macaanidiisii uu bartay oo macaanidiisii uu fahmay oo macaanidiisii iyo tafsiirkiisiiba uu meeshan uu ku dhamaystay waa fadli weyn waa qiimo weyn wuxuuna u furan yahay kitaabkan tafsiirka ah wadarkaysaan hadda waa la duubay oo maqal iyo muuqaal intaba waa laga duubay waxaan codsan lahaa
يركن رنتي أحمد آد وجود ذلك دوبتان كتفسيرك هي كتابك صحيح مسلم آد وجود ذلك عن عصام الله فتح جارة إن الله مروا إن إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرتي سبا إلهي وكل بانه إن فتح هذا الله أغريه وحوس سورتجلي كتابك تفسيرك إن عالم كدن الدون كلا جودة دقيست الدون كدن لا جودة دقيست محايا لي وهرب التواصل لوجو جليا وبسيط اللي جليا قف والبمشي الدون كجوجو أيوة الله هذا كتاب كدقيست إلى يومنا هذا كتابك صحيح مسلم هي كتابك التفسير كبا عالم كالصومالي أفكار الصومالي وحي كهذا الأردن مالوا الدون كجوجان 10 كي ما أنت اللي بحيي بريقه فالبجورجيس وجرى الدنيا ماشي كجوجا بركة بعد فضل الله تعالى إلهي فضل جيسي كبعدي وحسور تجلي يركن سور تجلي مركب فاتحة أنا وآخرنا إن شاء الله فاتح ninka maxaa jiraan muraadkiisa Allah shaa ورنتي وحوي وحصر تجلي إلهي فضلك كبعدي علمي تراث النقندون إن شاء الله تعالى وجيل بجيل وكسر لحل الدونه إن شاء الله تعالى أنت الدنيا للدول سارين هاي أردن لسيد ويسن دونه ودن كجوديسة يبدي سبا لقد ويسن دونه وحدعي كرتا إلهي فضلك سبحانه وتعالى وندعي دونتا إن شاء الله تعالى أنا هو الدنيا بكتجي oo dhintay oo qabri ku jira ayaa waxa dhici karta xataa in la sii dhageysan doono insha Allah taala oo tafsiirkan iyo kutubta dhanba laga sii faa'iidi doono oo dad aan hadda dhalan oo adduunka joogin oo hadda ka bacdi dhalan doona anigoo dhintay inay sii dhageysan doonaan marka waa turaas weyn ilaahay laakiin waxay ku xiran tahay qabuul inuu nasiyo ilaahay naga aqbalo subhanahu wa ta'ala wixii ilaahay uu san aqbalin magac kastuu yeesho iyo si kastuu u faafo waxba noqon maayaane إلهي دمانتين هنجا أقبل سبحانه وتعالى قبولنا إلهي هنجا سيو بإذن الله تعالى كتاب في تفسيرك ما دام السلاس ونقول لما هذي وحا إن شاء الله تعالى أن أوريق دونا فن كلام آخر سن دونا درسينا ونوسيس عن دونا إن شاء الله تعالى لكن تفسيرك كتبتا وقت جوهر وحاجري جري أنت هذا سن إيمان تكنولوجيا عصرية أو كتبتا أنا للضوبين إن كتابك والله بقور 3 قور 4 قور لو علعليه لكن هذا النوع والبابا وحو هيستا waxaan anigu aan u bixiyay sheekh la amrayo aan u bixiyay anigu walba iska heystaa niimariyo ku shibana gadaal u celi hore u celi ii bowsi ii tartiibi waa sheekh la amrayo waxa lagu tilmaami karo taas qof walba iska heystaa maanta waxa weeye yaani qof walba tafsiirka waa u duuban yahay وبدأسو مركا قفكي ربا إنه ماركتاي مراجعة وكسمايو أما عشردي هراء وصوح سوستو دب مراجعيو كاسو كفايدي سندونا إن شاء الله تعالى سلاسة مركا وحنجا كافنة إن مر لبعض مر سدحاد يلقوا العليو إلى مركي ون ماركتاي ليس راهو وحيالها ماركتا هذا وحاجرة كتب هراء نضوبي وطلب كان عصري أيضا جرين للضوبي جري يعني 15 سنة 16 سنة 20 سنة كدوات كهر للضوبي ayaa jira oo qaarkood iska baaliyoobeen oo codkoodii uu san saxnayn qaarkoodna 10 uu ka go'an yahay kutubtaas marka ayaguna waxay xaq u leeyihiin hadii Ilaahay umri nasiyo subhanahu wa ta'ala in dib loo muraajaceeyo insha Allah ta'ala laakiin tafsiirkan wuxuu ku soo aaday wuxuu kamid yahay kutubta ku soo aaday xilli hadda casrigu uu hormaray oo tiknoolajiyada casriga ah qaabkii la doonaba looga faa'iideysan karo hadda marka insha Allah ta'ala maadaama كتابك يعني صحيح مسلم كأه وكتاب مسلسله هذا 10 اسكسوا عندنا إلى كتبته أمهات الستة إلهي سبحانه وتعالى فضل جيس إلهي نوسور تجليه إلى أن كدم إنه واسيسوا عندنا مركا بإذن الله تعالى حلقا قلبتها وحنقلين دونا فنق فقهها هي فنق نحوها ومن بداية أن كسوا بالله إنه إن شاء الله تعالى سمركاس يعني ضدك الدرس الظهر كينا ونقول الدرسي وضدك واوين ومدرسين تأيو أي كفايدان حلقة قلبتينا جيلك الناشئة هو سوق بعاية وسوق كراية يجون حق ويشان وضدك ساس اللي كلا حق صاره والله كلا حق يبيه لكن هذه كتب واوين هذا قلبتي عن كدقنا وحين نقول حلقات كي نلقوا سوق كوبي
dadkii waaweynaa kaliya in lagu soo koobay oo kobcayo iyaga la rabay markan inay wax daraaseeyaan oo ummadda marka ay wax ku taraan marka si maaragtaahay labada jiilba ay u faa'iidaan insha Allah ta'ala aan bilaabi doonaa fiqhi bilaaw ah oo mukhtasaraadkiisa safiinada ku yaani ugu hooseeya aan ka soo bilaabi doono iyo naxwihi isagana aan soo bilaabi doono muddo dheer aanan ba akhrinba yaani naxwihi laakiin ilaahay fadligiisa waxa subhanahu wa ta'ala dadkii dhalinyarada ahaa oo xalqada ka xambaaray ayaa shuyuukh hadda ka afanigii naxwaha iyo luqada oo dadkay u akhriyeen iyagu hadda si akhriya marka iyada hadda baahi weyn looma qabo laakiin maadaama fanni uu ahaa oo dabeecadaydu ay baratay ee waxaan rabaa inaan noloshayda aan sii wado insha Allah ta'ala inta uu maaragtaa noolahay biidnillaahi ta'ala kitaabkan tafsiir sahih muslimka ah markuu noo dhamaado markaasaan waqtiga la bilaabayo aan iclaami doonaa naxwaha iyo fiqhiguna waa isla socon doonaan 4 maalmood oo loo kala qaybin doonaa labana naxwaha labana fiqhiga insha Allah ta'ala hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh